wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta Somaliland mudane Sheekh Khaliil Axmed ayaa magaalada Hargeysa ku daafuray barnaamij lagu diiwaangelinayo madarasadaha iyo dugsiyada lagu barto Quraanka Kariimka. Xafladan daafurka barnaamijkan waxaa ka soo qayb galay maayir ku-xigeenka dowladda hoose Hargeysa mudane Cabdicasiis Aadan, taliye ku-xigeenka ciidamada booliska Somaliland mudane Cabdiraxmaan Liibaan Fooxle, culimo awdiinka mas'uuliyiinta madarasadaha hay'adda Al-Khasaan ee samafalka, mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta Somaliland iyo marti sharaf kale. wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee Somaliland mudane Sheekh Khaliil oo munaasabadan ka hadlay ayaa sheegay in wasaaraddiisu ay siyaasad ka yeelan doonto helitaanka manhaj guud oo ka dhaxeeya madarasadaha si kor loogu qaado tayada waxbarashada ay bixiyaan. Wasiirku waxa uu intaasi ku daray in wasaaraddiisu ay hoos u eegi doonto dugsiyada gaarka ah ee barbaarinta ubadka yaryar. waxaa lagu soo kordhay KG waxa la yiraahdo ayna soo kordhay oo runtii ay noqon doonto in ay siyaasad ka yeelto wasaaradda diinta iyo awqaafta maadaama xukuumad ahaan dastuurku uu farayo soo kii ilaahay oo ka muhiimsan quraanka uu yahay haddana waxaanu dastuur ahaan ku heshiinay in waxbarashada asaasiga ah ay ka mid noqoto tacliinta diiniga marxalad kasta oo ay tahayna ilaa marxalad jaamacadeed inay diintu la socoto ilaa marxalad jaamiciya laga bilaabo malcaamadda si diintu ka soo raacday dugsigii dhexe hoose dhexe iyo kii sare iyo jaamacaddii inay diintu la socoto waxa weeyaan waa qodob asaasi ah oo ka mid ah maxaan ku dhahdaa qodobada dastuuriga ee dalkeenu leeyahay. waxaa kaloo jiray qodobkii ahaa imika uu Cabdilcasiis nooga dhawaajinayay qodobka siinaya muxuu ahaa maayirada iyo degmooyinka amba deegaanada dowladda hoose inay iyagu mas'uuliyadda qaadaan horumarinta quraanka kariimka. agaasimaha guud ee wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta mudane Aadan Cabdilaahi Cali munaasabadan ka hadlay ayaa sheegay in barnaamijkan ujeedadiisu ay tahay in kor loogu qaado tayada aqooneed ee macallimiinta dhigaya dugsiyada quraanka si looga hortago nidaam xumada iyo sida uu hadalka u dhigay. Sheekh Jabro isagu hindisay barnaamijkan lagu daahfurayay diiwaangelinta ayaa ka waramay muhiimadda uu leeyahay iyo kaalinta uu ka qaadanayo horumarinta dugsiyada quraanka ama madarasadaha loo yaqaano. Sheekh Maxamed Aadan oo ka mid ah gudida madarasadaha iyo masaajidda ayaa isaguna kulankan ka sheegay in barnaamijkan diiwaangelinta ahi muhiim u yahay kala saaridda hantida waqafka ah iyo midda aan waqafka ahayn si aanu marka dambe muran uga dhalan. waa madaarista quraanka lagu dhigaa waa laba nooc dhismahan ka hadlaya mid waxa weeye madrasado ama la kireystay ama dad gaari iska leeyihiin oo aan awqaaf ahayn qaarna waa awqaaf waqfi waxa weeye dancaama weeye ummadaale boqolaalka sano ee socda la iska dhaxlaya waxaanu shaahidunaa ragayga waaweyni madaaris hore wax lagu baran jiray oo awqaaf ahaa inta iska yeesheen oo maanta aanay jirin ay yihiin makhaayado iyo hodheelo iyo dukaamo la iska kireystay arrintaasi in laga diyaar garoobo waa daruuri wixii awqaafana waa in awqaafta la bilaabaa diiwaangelinteedii naadirka iyo waqfigu way kala duwan yihiin marka lagu diiwaangeliyo maaha waa laga qaadaya naadir baa jiro sharcigu mas-uul buu siiyey mas-uulka isaga haynaya laakiinse in uu noqdo waqafka in la yaqaano horena wasaaradda waan ugu sheegay imikana waan u sheegayaa dhaqaalihii aniga iga galay madrasadaha daarul qur'aan ama cid kale ka galay waa awqaaf lama dhaxli karo lama hibayn karo cid lama siin karo. ku-xigeenka duqa Hargeysa mudane Cabdicasiis Aadan oo munaasabadan ka hadlay ayaa ballan qaaday inay dowladda hoose bixin doonto dhul laga dhisayo madrasado iyo wixii kharash ku baxaya. Hargeysa 8 degme ka koobantay 8 degme Hargeysa tahayba inaanu mid kaste dhul dhow maaha dhulalkan danta guud iyo had iyo jeer waa dhulal wada fog inaanu dhul dhow u raadino u iibino u dhisno aanu meesha ka dhigno malcaamado quraanka degmo walbana mid sidaas aanu u sameeyno oo aanu ku bilowno. Xamse Xir Saxayd codka bariga Afrika magaalada Hargeysa.